Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waa dagaalka ugu dambeeya ee dhici doona ka hor maalinka qiyaamaha. Waa loolan adag oo dhex mari doona khayrka iyo sharta, waxaana ku halaagsami doona 3 meeloodoo meel oo ka mid ah caalamka. Waa dagaallo aad u waaweyn iyo dhimasho aanan tiro lahayn. Waa maalinka xaqu uu guulaysan doono oo baatilkuna uu dhiman doono. Waa dagaalka ugu dambeeya ee adduunyada, waxayna malxamadaasu dhici doontaa ka hor inta uusan soo bixin Masiixu Dajjaalka. Dhulka ayaa isbedeli doona, waxaana qarsoomi doona qaarado waaweyn, taas oo ay sababi doonaan dhulgariiro iyo foolkaanooyin aad u waaweyn. Buuro ayaa dhalaali doona, daadad waaweyn iyo cudurro aad u faafa ayaa dhulka qabsan doona. Waxaana dhiman doona tiro aad u fara badan oo ka mid ah bani-aadamka. Waa dagaal caalami ah oo aad u burbur badan, wuxuuna sabab u noqon doonaa in tiknoolajiyaddu ay baaba'do, waxayna taasi horudhac u noqon doontaa malxamada ama dagaalka aadka u weyn. Waxayna Ruum Muslimiinta ka dalban doontaa in ay garab siiyaan oo ay u gargaaraan. Markaas bay Muslimiintu uga gargaari doonaan cadowgooda. Kadibna Ruum ayaa Muslimiinta dhakri doona oo khiyaami doona. Markaas baa waxaa dhici doonta malxamada weyn ama dagaalka ugu weyn. Wuxuuna noqon doonaa dagaal fardo iyo seefaf lagu dagaalami doono. Waxaana dagaalkaas hoggaamin doona Al-Mahdiyul Muntadhar. Dagaalka la yiraahdo Harmajidoon, sida Masiixiyiintu ay aaminsan yihiin, waa dagaal dhici doona aakhiru zamaanka, kaas oo u dhaxayn doona mu'miniinta iyo gaalada. Wuxuuna ugu dambayn kala sooci doonaa xaqa iyo baatilka. Waxayna Masiixiyiintu aaminsan yihiin in dagaalkaas uu hoggaamin doono Sayidunaa Ciisa calayhi salaam. Waxay aaminsan yihiin in uu gaalada la dagaalami doono oo Yahuuddana uu Masiixiyadda ku celin doono. Balse Yahuuddu waxay aaminsan tahay in uu hoggaamin doono Masiixul Muntadhar oo markiisii ugu horreysay soo degi doona. Dabcan, iyagu waxay haysteen diintii Nabi Ciise calayhi salaam ka horreysay ka hor inta aysan inxiraaf ku samaynin. Waxaana kitaabadooda ku caddeyd in Nabi Ciise uu soo bixi doono. Markii uu soo baxay oo tilmaamihiisii saxda ahaa ay arkeenna waa ay beeniyeen. Waxayna weli sugayaan in Masiix kale uu soo bixi doono. Waxayna aaminsan yihiin in isagu uu gaalada ka xoreyn doono oo uu dhisi doono dowladda caalamka oo dhan hoggaamisa oo Falastiin ka soo bixi doonta. Balse innagu haddii aynu Muslimiinta nahay, waxay axaadiista Nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam inoo sheegayaan in malxamadan ama dagaalkan uu dhici doono isaga oo uu hoggaamin doono Al-Mahdiyul Muntadhar, kaasoo goobjoog ka ahaan doona marka uu soo degayo Nebiyullaahi Ciisa calayhi salaam, kadib markii dagaalku uu dhammaado oo Roomana la furto. Wuxuuna Mahdigu calayhi salaam ka soo bixi doonaa Madiinatul Munawwara. Waxayna ciidamada Muslimiintu uga imaan doonaan meel walba si ay ula mubaayacoodaan. Waxaana la midoobi doonaa Masiixiyiin ka tirsan Ruum ilaa dagaaladu ay ka dhammaadaan oo Saliibiyiintu doonaan in ay la dagaalamaan Muslimiinta. Markaas baa waxaa Saliibiyiinta iyo Muslimiinta dhex mari doona dagaal aad u weyn. Wuxuu yidhi Nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam: satusaalixuuna الruuma sulxan aamina, fataghzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum, fatunsaruuna watagnamuuna wataslamuun, ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. satusaalixuuna الruuma sulxan aamina, waxaad Ruum ama reer Yurub la geli doontaan heshiis nabadgelyo ah.
fataqzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum, markaas baad idinka oo wada jira waxaad ku duuli doontiin cadow kale. fatunsaruuna watagnamuuna wataslimuun, markaas baad soo guulaysan doontaan oo khaniimooyinna soo heli doontaan idinka oo nabad qaba. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، markaas baad soo noqon doontaan ilaa aad ka soo degtaan beer ku taalla dhul sare oo aad u ballaaran oo dhir leh. fayarfacu rajulun min ahli النصرانية الصليب fayaquul، markaas buu nin nasaarada ama saliibiyiinta ka mid ah intuu saliibkii uu caabudayay kor u qaado wuxuu odhanayaa غلب الصليب، saliibku waa uu guulaystay. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، kadibna nin muslimiinta ka mid ah ayaa intuu caroodo wuxuu jebinayaa saliibka. فعند ذلك تغدر الروم، markaas bay ruumku intay caroodaan ka baxayaan heshiiskii u dhaxeeyay iyaga iyo muslimiinta. watajmacu lilmalxama، waxayna ciidankooda u abaabulayaan malxamada oo ah dagaal ay la galaan muslimiinta. sidoo kale wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam: faya'tuunakum taxta 80 gaaya taxta kulli gaayatin 12,000، waxay idinku soo weerari doonaan iyaga oo wata 80 calamadood ama 80 kooxood oo koox walba ay ka kooban tahay 12,000 oo askari. wuxuuna rasuulku calayhi الsalaatu wassalaam malxamo oogu sifeeyey badnida ay badan yihiin dagaalada muslimiinta looga soo horjeedo awgeeda. markii dagaalku uu bilowdo maalinka koowaad, koox muslimiinta ka mid ah ayaa soo bixi doonta iyaga oo ballan qaadaya in aysan soo laaban doonin ilaa ay muslimiinta guul u keenaan ama ay fii sabiilillaah ku dhammaadaan mooye. dagaalka ayaana maalinkaas oo dhan soconaya ilaa habeenkii uu ka kala qaado labada ciidan, waxaana halkaas ku dhammaanaya maalinka koowaad ee dagaalka. ugu dambayntii waxay muslimiintu u kala qaybsamayaan 3 qaybood oo kala ah: qayb jabi doonta oo carari doonta, kuwaasina waa kuwa uusan alle subxaanahu wa tacaala cafin doonin ilaa iyo qiyaamaha, iyo qayb shahiida oo alle subxaanahu wa tacaala waddadiisa ku dhiman doonta, kuwaasina waxay alle subxaanahu wa tacaala agtiisa ku yeelan doonaan darajooyinka shuhadada oo aad u sarsareeya, iyo qayb guulaysata oo gaalada jebin doonta, kuwaasina waa kuwo aanan la fitnayn doonin ilaa iyo maalinka qiyaamaha. kadib markii muslimiintu ay guulaystaanna waxaa hadli doona dhagaxaanta iyo geedaha, wuxuuna geedku odhan doonaa: yaa muslim yaa cabdallah, haadaa yahuudiyun khalfii fatacaala faqtulh. yaa muslim, addoonkii ilaahayow, yahuudi ayaa gadaashayda ku jira ee kaalay oo dil. ila algarqad fa innahu min shajari alyahuud, markii laga reebo geedka loo yaqaano qarqadka, isagu wuxuu ka mid yahay geedaha yahuudda. ibnu mascuudin radiallahu canhu wuxuu yidhi: ina asaacata laa taquum xataa laa yuqsama miiraathun walaa yufraxa bighaniima. qiyaamuhu ma dhici doono ilaa dhaxalka laga qaybin waayo oo khaniimadana lagu farxi waayo. caduwun yajmacuuna liahli lislaam, cadow ayaa islaamka u kulmi doona oo isku abaabuli doona si ay ula dagaalamaan, wuxuuna ula jeedaa ruum. wayajmacu lahum ahlulislaam, muslimiintuna waa ay u diyaargaroobi doonaan si ay dagaal ula galaan. watakuunu cinda daakum alqitaal riddatun shadiida, markuu dagaalkaas dhacayana waxaa dhici doonta in dad aad u fara badan ay ka laabtaan diinta oo ay gaaloobaan. mid ciidanka ka mid ah ayaa wuxuu odhanayaa ama odhan doonaa: muslimiintu waa ay kala tagayaan, muslimiintu waa ay cararayaan. markaas buu nin muslimiinta ka mid ah wuxuu odhan doonaa: yaa igula mubaayacoonaya in aan dagaalka galno oo aan ku dhimanno. fayashtaritu almuslimuuna shurطatan lilmowt laa tarjicu ilaa ghaaliba.
markaas bay muslimiintu waxay diyaarinayaan koox iyaga ka mid ah oo ku midaysan in aysan soo noqon doonin ilaa ay ka guulaystaan ama ay shahaado soo helaan. fayaqtatiluuna xataa yaxjuza baynahum alleyl, markaas bay dagaalamayaan ilaa habeenkii uu ka kala qaado ama soo kala dhex galo. fayafii'u haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i kullun ghayru ghaalib, kadibna waxay labada ciidan kala noqonayaan iyaga oo midna uusan guulaysan. watafna shurta, waxaana wada shahiidaya dhammaan kooxdii naftooda soo qadimtay. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، kadibna waxaa soo baxaya koox kale oo muslimiinta ka mid ah oo iyagana ku midaysan in aysan soo noqon doonin ilaa ay ka guulaystaan ama ay shahaado helaan. fayaqtatiluuna xataa yaxjuza baynahum alleyl, kadibna waxay dagaalami doonaan ilaa habeenku uu ka kala dhex galo. fayafii'u haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i kullun ghayru ghaalib, kadibna waxay labada ciidan kala noqonayaan iyaga oo midna uusan guulaysan. kadibna waxaa wada shahiidaya dhammaan kooxdii naftooda soo qadimay. nahda ilayhim baqiyatu ahli lislaam, kadibna waxaa dagaalka soo wada galaya muslimiinta intoodii soo hartay. fayajcalu allaahu dabrata calayhim, markaas buu alle subxaanahu wa tacaala gacantooda ku jebin doonaa gaalada. fayaqtatiluuna maqtalatan cadiimatan imaa qaala lam yara mithluha wa imaa qaala lam nara mithlaha xataa ina alطaa'ira layamuru bijanabaatihim falaa yukhallifuhum xataa yakhira mayita. wuxuu yidhi markaas bay dagaalami doonaan dagaal aad u weyn oo mid la mid ah aanan horay loo arag, ilaa shimbirkii isku daya inuu baalashiisa korkooda ku maro uusan mari karin oo uu ku soo duldhacayo isaga oo meyd ah. muslimiinta ayaa guulaysan doonta, dhaxalkana lama qaybin doono, khaniimadana laguma farxi doono. maxaa dhaxal la qaybiyaa oo khaniimo lagu farxaa? koox dad ah oo qaraabo isku ahaa oo 100 qofood gaarayay oo dagaalka isla soo gashay ayaa la arkayaa iyaga oo hal qof oo keliya uu ka nool yahay. fabaynamaa hum kadalik id samicuu biba'sin hum akharu min daak jaa'ahum assariikh ina addajaala qad khallafa fii daraariyihim. iyaga oo xaaladaas ku sugan ayay waxay maqlayaan dhib kale oo dhibkii hore aad uga sii weyn. waxaa u imaanaya qaylo dhaan odhanaysa, wuxuu dajaalku idinkaga dib maray carruurtiina iyo haweenkiina. fayarfuduuna maa fii aydiihim wayaqbiluun fayabcahuuna 10 fawaarisa طaliica, markaas bay wixii ay gacanta ku hayeen intay iska tuuraan dajaalka soo aadi doonaan iyaga oo aad ugu baqaya carruurtooda. waxayna iska hormarinayaan 10 nin oo fardoolay ah si ay xaalka u sii qiimeeyaan. qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, innii la acrifu asmaa'ahum wa asmaa'a aabaa'ihim wa alwaana khuyuulihim hum khayru fawaarisa calaa dahri alardi yowma-id. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wassalaam, anigu waxaan garanayaa magacyadooda iyo magacyada aabbayaashooda iyo midabada fardahooda. waa fardoolayda ugu khayr badan ee maalinkaas dhulka dushiisa ku nool, ayuu yidhi calayhi salaatu wassalaam. sidoo kale waxaa soo degi doona nebiyullaahi ciisa bnu maryama calayhi assalaam. wuxuu yidhi rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam, waaladii nafsii biyadih layuushikanna an yanzila fiikum ibnu maryam xakaman cadla fayaksiru asaliiba wayaqtula alkhanziir wayadaca aljizya wayafiida almaalu xataa laa yaqbalahu axad. waxaan ku dhaaranayaa allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirto, waxaa soo dhowaatay inuu dhexdiina ku soo dego nebi ciise calayhi salaam, isaga oo si cadaalad ah idinkugu xukumi doona. wuxuu jejebin doonaa saliibka, doonfaarkana waa uu dili doonaa, jizyadana waa uu joojin doonaa, maalka ayaana aad u fara badan doona ilaa laga waayo cid qaadata.
waa fitno aad u weyn oo uu Alle subxaanahu wa tacaala ku imtixaami doono muslimiinta, waxaana laga doonayaa oo keliya in ay sabraan. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يصبرنا وأن يأجرنا وأن يحفظنا وأن يرحمنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.